السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انت ابوني دلهانتين بصاحبada ku xidhan channelka Mera Films hadii aad ku cusubtiin oo ay tahay boqoshadiina koobaad fadlan channelka subscribe sar gambeelka fursa aad noqoto daawadeesha ugu horeeya ku taxan muuqaalada halkan aan soo galino aad iyo aad ayagu maasidi saaxiibada daawashadiina ay ka qayb ahaanshiina ku soo dhawaada mowduuc gaar ah oo maanta ku qaada dhigi doono Gubada Ragsan iyo Khadra Silima kooxda ay sameysteen ee Djibouti ka heesaysay 2020kii tolow xagee ay ku dambeysay iyo maxay ay u sameysteen iyo sababta ay u sameysteen waa maxay xidigaha geeska uga tageen daawadayaal muuqaalka shan qaada dhigi doonaa haddaba ku soo dhawaada bandhiga Mera Films mar walba waxaan naga xasuusinayaa dad channelka subscribe saartaan oo idaan like iyo waxa yara share taaba idaan naga xistiin way bal soo dhawaada haddaba saaxiibayaal ku soo dhawaada mawduuca maanta iyo Khadra Silima iyo Gubada Ragsan oo ahayd xaajida qamar suugaaniye hore iyo xaajida Mursal Muuse horeba fanaanada Gubada Ragsan iyo Khadra Cabdi Silimo ayaa tagay wadanka Djibouti markii ay ka quusteen nolosha Hargeysa ayaa la yiraahdaa si kastaba noqotay fanaanada Gubada Ragsan iyo Khadra Cabdi Silimo ayaa waxa ay ka go'goosteen magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeedaba markii ay iimo badan iyo eedo badan soo jeediyeen dhalinyarada YouTuberiska ah iyo dadkii qabeebeedahan oo ka dhan ahaa fanaanada Khadra Silima iyo Gubada Ragsan si kastaba noqotay eedahan ayaa ahaa eedo ay personal attack loogu sameeyay halkani daawadayaal bandhiga Mera Films hadii ku cusub tahay ku subscribe na saar si aad u noqoto daawadeesha ugu horeeya ee ku xidhan bandhiga Mera Films tahay isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan saaxiibayaal mar labaad waxa la sheegay fanaanada Gubada Ragsan iyo Khadra Silima ayaa waxa ay joogaan wadanka Djibouti iyadoo ay u joogaan in ay halka ka abuuraan kooxdaas oo noqon doonta runtii koox taabagal ah Khadra Silima iyo Gubada Ragsan ayaa ka gogoostay gabi ahaanba Soomaaliland markii ay iima dhan kala kulmeen YouTuberiska Hargeysa iyo dhaliilo badan oo kaga imanaya xagga fanaaniinta si kastaba ha noqotay Gubada Ragsan iyo Khadra Silima ayaa waayidii ugu dambeeyay ku sugnaa wadanka Djibouti iyadoo la leeyahay Khadra Cabdi Silima waxa ay u dhoofaysaa xagga iyo Kanada si kastaba ha noqotay Gubada Ragsan ayaa iyadoo la sheegaya in ay haatan ka daba tagtay iyada iyo Gubada Ragsan ba ay halka ku abuuri doonaan kooxdaas oo noqon doonta gabi ahaanba xidigaha geeskuna laga yaabaa in ay ku soo hoban doonaan si kastaba ha noqotay arrintan ayaa u eeg fanaaniin badan in ay ku raacsan iyadoo Snapchat-dooda iyo Instagram-dooda ay soo dhigeen fanaan aad iyo aad u fara badan gabi ahaanba marka la isbarbar dhigo labadan fanaan ayaa noqon kara koox dhameystiran marka Khadra Cabdi Silimo iyo Gubada Ragsan ay meel isugu tagaan dhanka kale waxaan ku maqlayaa xamo in ay Yurub geeyana joogto xagga iyo wadanka Djibouti oo ay fanaaniintii badi ku hoobatay si kastaba noqotay Gubada Ragsan ayaa haatan dadka kamid ah Djibouti iyadoo sanadka cusbaan arkay heesaha ay soo wada saareen iyada iyo fanaaniin reer Djibouti-aba waayahay Khadra Cabdi Silimo ayaa la sheegayaa inay u dhoofayso xagga ay wadanka Canada saata uma ay suurtagal ayaan u maleynayaa sida ay xamo badan ama social media lagu qaada dhigayo dhanka kale fanaanka qamar suugaani ayaa isagoo afka furtay maalmo dhawaato la kana hadlay arrinka Gubada Ragsan isagoo qoraal dheer ku soo qoray bartiisa Instagram-ka raaligelin iyo soo ceeshad hadallo kamid ahaa si kastaba ha noqotee Gubada Ragsan iyo Khadra Cabdi Silimo ayaa haatan aasaasaya koox kuna aasaasaya wadanka Djibouti balse maxaa u dambeyn doona xidigaha geeska talow ma ka daba tagi doonaan oo iyaguna wadanka Djibouti ma tagi doonaan mise xidigaha geeska ma sii ahaan doonaan xagga comment-ka ku soo xariiqi doontaa waa tahay saaxiibayaal halkan waa bandhiga Mera Films mar walba waxaan naga xasuusinaa inaad channelka subscribe saartaan gambeelkana furataan si aad u noqoto daawadeesha ugu horeeya ee ku taxan muuqaalada halkan aan soo galino insha Allah maalin walba mawduucyo aad iyo aad xiiso gaar ah xambaarsan ee idin soo galin doonaa dhanka kale fanaan qamar suugaani ayaa isagu maalmo dhawto afka furtay kana hadlay arrinkan Gubada Ragsan isaga oo bartiisa Instagram-ka ku soo qoray qoraal dheer qoraalkaas oo ahaa iimo iyo hadallo uu soo jeedinayo Gubada Ragsan isku soo wada duuba qamar suugaani iyo Gubada Ragsan ayaa u soo muuqata sasaan in ay isku soo noqon doonaan geesta kale fanaanada Khadra Cabdi Silimo ayaa iyadu waayidii ugu dambeysay lahaa way dhooftay marna la leeyahay waxa guursaday nin wasiir balse arrimahaas anagu waxba kama oogin oo ma sheegi karno arrinkaas halka uu ku dambeeyay balse xaqiiqada in ay qamar suugaani oo qoraal ugu soo qoray barteeda Instagram-ka xaqiiqaduna waxay tahay inaanu soo bandhigno wax walo oo aanu arkayno ama badi social media lagu qabo anagoo aan iska ilaalinayna 70% in aanu been sheegin inkastoo aanu bilaadanahay balse haddana muuqaaladayda waxaanu isku daynaa in aanu runta kaga hadalo fanaanada Khadra Cabdi Silimo ayaa la leeyahay mar waxa guursaday in yar oo dhalinyaro ah oo in badan la soo sawirayay sawiradiisana la soo dhigayay Snapchat-da iyo status-yada iyo Instagram-da iyo YouTube-yada iyo Facebook-yada si kastaba ha noqotee Khadra Cabdi Silimo ayaa afka furan kana hadal arrinka balse haddana waxa la qaada dhigaya guurka Khadra Cabdi Silimo iyo nin wasiir
arrinkaasna waa waxba kama jiraan ayaa lagu tilmaamayaa maxaa yeelay Qadar Cabdisalaam kama hadal baafkana may furanin hambalyadeedana cid soo dhigaysa ma baragnaba isku soo wado arrinta kooxda xidigaha aan iraahdo Djibouti xidigaha Djibouti ayaa noqon doona xidiga madaxa la soo kacaya sanadkan 2 ama 2020 isku soo wada duub arrinka xidigaha Djibouti ayaa la rajeynayaa in ay noqoto xidigaha Djibouti kuwa ugu cadcad xidigaha geeskuna dibloma oo neeg doona halkay ku dambeeyaan waa tahay saaxiibayaal aad iyo aad iyagu maastiin muuqaalada halkan aan soo galnay sida la socotaan ee quruxda badan channelka hadii aad ku cusub tahay Mira Films fadlan subscribe sar ilaahay khayr iyo bashbash nagu gaarsiiyo sanadkiisa ilaahay waxaanu ka baryaynaa rabadaan tahay food nagu soo haysa insha Allah inuu caafimaad qab nagu gaarsiiyo ilaahay intii dhimatana uu naxariisto inta nool ilaahay ugu daba naxariisto intii guursatay caruuro iyo awlaad haysatan ilaahay barakayo intii sugaysana ilaahay waxaanu uga baryaynaa anagu ka mid nahayna inuu ilaahay noo fududeeyo insha Allah ta'ala ilaahay xajkana waxaanu ka baryaynaa inuu isaguna nageeyo insha Allah ta'ala intii uu geeyay ilaha raxmaanka ka aqbalo بخير صاحبيال إن شاء الله مقالك ما أنت هالكاس أيام رمضان كو كوبنا هدي channel كاميرا فيلم ساتكو حسب تاي برضو حنيجا حسنا channel سبسكرايب صارت نكمل لك فرصة صاد نقطة داود الشو جورية يكون تحن مقالة ذلك أنا نسوق لنا